waaxda warfaafinta dowladda Masar ayaa beenisay wararka sheegaya in Masar ay diyaar u tahay inay dib u dejin u sameyso nus milyuun reer Ghaza ah dhulkeeda. Hadalka Masar ayaa ka dambeeyay kadib markii dhowr wareysi oo ay ku jiraan kuwa Israa'iil ay daabaceen. Madaxweyne Sisi ayaa beeniyay wararkaasi sheegaya inuu diyaar u yahay in nus milyan Falastiin ah uu ka soo wareejiyo Ghaza una wareejiyo dhulkiisa. War qoraal ah oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Bariga Dhexe ee Masar, Qaahira, si buuxda ayay u beenisay eedeymaha ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta, kuwaas oo la xiriiray inay diyaar u yihiin inay si ku-meel gaar ah u rarto nus milyan qof oo degan Ghaza, isla markaana la geynayo magaalo loo cayimay oo ku taalla waqooyiga Siiniya, taasoo qayb ka ah dib u dhiska marinka Ghaza. Wargeyska warbixintiisa ayaa kusoo beegmaysa hadal uu yiri wasiirka difaaca Israa'iil Yisrael Katz, kaas oo tilmaamay in la fulinayo qorshe uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu horumarinayo Ghaza xilli ay Israa'iil duqeymo ay ka wado dhulkaasi. Inkastoo isla maalmahan gudahooda ay kooxda Xamaas ee u dagaalanta xuquuqda muwaadiniinta Falastiiniyiinta ay dib u bilowday weeraradii ka dhanka ahaa Israa'iil. Si kastaba, dunida Islaamka ayaa u fahamsan nidaamkan uu Mareykanku u fasiray in uu ku horumarinayo dadkaasi ay beddelkeedu tahay in uu barakiciyo dhulkoodana uu la wareego, isla markaana uu dejiyo amaba uu u madax banaaneeyo Yahuudda.